xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wakiilkiisa rasmiga ah ee Soomaaliya u magacaabay James Swan. sidoo kale waxaa ninkan loo magacaabay madaxa howlgallada qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. Swan ayaa xilkan si ku meel gaar ah u hayay tan iyo bishii May 2024. hadda waa magacaabis rasmi ah, waxaana qoraalka qaramada midoobay lagu sheegay in xilligan adag ee xalka Soomaaliya u baahan yahay. ninkan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay aruurinaya xogta siyaasadda ee Soomaaliya. wuxuu wada hadal la yeeshay dhammaan madaxda siyaasiyiinta Soomaaliya, mucaarad iyo muxaafid. wuxuuna ninkan raadinayaa xalka Soomaaliya, tabashooyinkii dhinacyada iyo sida loo qaban karo doorasho dhextaal ah. James Swan oo ah ninkan Ameerikaanka ah ayaa sabab u ah inay Soomaaliya ka soo gudubtay xilligii adkaa ee 2020kii, markaas oo cabsi weyn ay gashay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya kadib dib u dhicistii doorashada. markaan isla xaaladda ayaa ka taagan isla Soomaaliya, sida uu sameeyay madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhamaadkii muddaxileedkiisii. mid la mid ah ayuu hadda wadaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo ah doorasho hal dhinac ah. danjire James Swan wuxuu hormuud ka ahaa madaxdii reer galbeedka ee Farmaajo ku qanciyay inuu dhaxal soo dhigo doorashada oo awoodda doorashada uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. mar kale waxaa la aaminsan yahay inuu James Swan u soo celin karo Xasan Sheekh Maxamuud dhabaha doorasho loo dhan yahay, maadaama uu fahamsan yahay waxa la isku hayo iyo tabaha lagu xalin karo. ma jiro qof isaga kaga wacan oo booskan loo soo magacaabi lahaa ay leeyihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida. sidoo kale waxaa isha si gaar ah loogu hayaa xaaladda amni ee Soomaaliya kadib markii ay kooxda Al-Shabaab ay keeneen culeysyo cusub oo dhinaca shabeellooyinka ah. qaramada midoobay ayaa wali u muuqatay inay mudnaanta siinayso Soomaaliya, si gaar ah James Swan oo laga dhigay ergi buuxa. waa muujinta in xalka Soomaaliya u baahan tahay qof fahamsan oo xalin kara. ninkan ayaa hore ugu soo shaqeeyay wadamada Djibouti iyo Koonka Dihaara. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa hadda ku bilaabatay cadaadis caalami ah iyadoo lagu cadaadinayo inuu dhiso dowlad dagaal oo loo dhan yahay. waxay reer galbeed ku sheegeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu siyaasadda dhulka dhigo lana heshiiyo maamul goboleedyada maqan ee Jubbaland iyo Puntland. xalka siyaasadeed ee Soomaaliya midka amni labadaba si gaar ah isha uga hayaan dowladaha waaweyn sida Mareykanka, Britain iyo Midowga Yurub. siyaasiyiinta aan wax ka weydiinay magacaabista cusub ee James Swan waxay rajo fiican ka muujiyeen in xal fudud oo siyaasadeed uu keeni karo James Swan. haddaba sida wacta adiga